waxaanu soo jeedinaynaa in aanay dhicin wax wada hadal ah oo ay Puntland ka maqan tahay ama aanay dhinac ka ahayn oo khuseeya gobollada Puntland gaar ahaan gobolka Sool iyo Sanaag oo dowladda federaalku la gasho cid aan arrimahaas gobolladaas khuseyn waxaanu cadeynaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa xasiloonida midnimada Soomaaliya inay gobollada Sool iyo Sanaag ka mid yihiin dowladda Puntland ee Soomaaliya qaybna ka yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya wakiilada laga soo doortayna ay fadhiyaan labada gole ee hadda baarlamaanada Soomaaliya u fadhiya sidaas awgeed waxaan cambaaraynaynaa sheegashada iyo xadgudubka aan caqliga iyo cilmiga ku dhisnayn oo ay wadaan kuwa lidka ku ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliya waxaan u mahadcelinaynaa kuna bogaadinaynaa qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya shaqada qaran ay hayaan gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo soo celinta maxaabiista Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka dabadiisa waxaanu ku boorinaynaa hawsha in la sii wado waxaan talagelin ku soo jeedinaynaa ka Puntland ahaan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalba oo haddana hor fadhiya oo wakiilada ka ah Soomaaliya guud ahaan qaybaheeda in ay muuqato inoo fiican tahay in la helo xasilooni siyaasadeed waxa weeye inaynu jeensano waxyaabaha dhabta ah oo dalkeenna wax ka qaban karaya waxa xantu tahay aan ku haynaa meelaha aan ka nimi baarlamaanada iyadu inay ku mashquulsan yihiin arrimo dhexdeena arrimahaasi waa arrimayno dhaliila waa arrimo wax badan ka bedelaya baarlamaan wuxuu leeyahay 3 shaqo waad ogtihiin annana waan ognahay dowlad goboleed baan ku nahay qarankii Soomaaliyeed baan ku metelaysaane dabagal baan leenahay xukuumadda in la dabagalo waxaanu leenahay metelaad shacabkeenu ka nimin metelno waxaanu leenahay inaynu qiimayno wax kasta oo dowladnimadeenu ku hagaagayso mudanayaal talo soo jeedinteedu waxa weeye waa mooshin badan siinay mooshinada yaraya dalkana u shaqeeya dhibaatadana ka yareeya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.